السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكينا waxaynu ku eegaynaa caylaalta oo la isku cayo ma horseedi kartaa iscaateen. waa qodob markaa aad u xiiso badan dad fara badanna ay aad u danaynayaan. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar si markasta aad u hesho fariimaha iyo sidoo kale macluumaadka aan bulshada usoo bandhigno. waxaa la cadeeyay in dadka oo cayilan ama cayilka lagu caayo ay hal shay samayso taasoo ah in qofku uu ceebeysto inuu aad u liidjamo kuna kaco dhaqamo waxyeeleyn kara sida in cuntada uu aad u cuno. fadlan haddii channelkan aad ku cusub tahay subscribe saar si macluumaadka iyo fariimaha aan bulshada usoo bandhigayno ay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo gaaraan. waa hagaag waxaynu eegi doonaa warbixin ka hadlaysa caylaalta oo la isku cayo ma horseedi kartaa iscaateen. cayilku maaha wax qofku uu doorto mana aha in qofka lagu ceebeeyo waxaana ka dhashaa un dhibaato. sidaas waxaa yidhi khubaro xagga cilmi nafsiga ah ayagoo soo jeediyey hab cusub in la wajaho. waxaana ay ku baaqeen khubaradaasi in la bedelo luqadda oo aan la odhan qofka cayilan qof cayilan. waxayna intaa raaciyeen in shaqaalaha caafimaadka loo tababaro. dadka buuran ayaa aad markaa ugu badan dunida sida lagu ogaaday tirakoob la sameeyey. dadka buuran waxaa lagu qiyaasaa 18% in markaa ay kor u kacday qaybo ka mida markaa Scotland, England, Wales iyo sidoo kale waqooyiga Ireland. waxayna taasi ka dhigan tahay 4 qof ee waaweynba mid cayilan yahay iyadoo 3 meelood 2 meel ay si xad dhaaf u cayilan yihiin. khubarada waxa ay sheegeen in tali ahayn un dadka oo caajisay ama iska fadhiistay oo ay ka lunta firfircoonidooda. cayilaalta oo la isku cayo ma horseedi kartaa iscaateen. mar haddii daadiyaha barnaamij ka baxa telefishin ku yaala Mareykanka oo magaciisa la yiraahdo Bill Maher uu ku baaqay in la soo celiyo dhaqankii ahaa in dadka lagu cayo cayilaaltooda ayaa waxaa u soo jawaabay lil dhigiisa ah oo lagu magacaabo James Jordan. jawaabtaas waxa ay noqotay mid aad ugu faafta baraha bulshada ay ku xiriirto. waxaa la cadeeyay in dadka oo cayilka lagu caayo ay hal shay samayso taasi oo ah in qofku uu ceebeysto in uu niyad jabo kuna kaco dhaqamo waxyeeleyn kara asiga sida in uu cuntada aad u badsado. wuxuu intaasi ku daray in haddii cayilka oo la isku caayo ay wax ka tarayso dhimista miisaanka in aanu iskuuladu lagu arkayn caruur cayilan. balse waxaa la isweydiin karaa in James uu dhabta ka hadlayo maadaama tirakoobyo la sameeyey lagu ogaaday in dadka ku nool Ingiriiska iyo Mareykanka ay 100% ka saami badan yihiin kuwa cayilan. Mareykanka ayaa tirakoobku ugu badan yahay dadka qaalgaarka ah waxaa la sheegay in 70% ay yihiin dad cayilan. nin hore u ciyaari jiray kubadda basketballka waxa uu sheegay in miisaankiisa oo saa'id ahaa awgii ay kaliftay in mihladiisa ciyaaraha ay galaafatay maadaama tababarayaashu aysan wax dan ah u muujineen. Professor Jane Ogden waxa uu ka tirsan yahay jaamacadda Surrey la yiraahdo waxaana uu sheegay in dadka oo lagu caabeeyo caylaaltooda ay waxba soo kordhineen dhib ay keento mooyaane.